waa qaybtii 19aad qisooyinka nebiyada. Waxaan qaybta hore uga soo sheekeynay qisooyinkii Nebi Shucayb, Nebi Ayuub iyo Nebi Yuunus calayhimussalaam. haatanna waa qisadii Nebi Muuse iyo Nebi Haaruun calayhimussalaam. Nebi Yacquub calayhisalaam markii uu galay Masar isagii carruurtiisa oo ay deegaan ku yeesheen, waxaa Nebi Yacquub lagu naanaysay Israa'iil. kadib markii ay geeriyoodeen Nebi Yacquub iyo carruurtiisa oo uu ku jiro Nebi Yuusuf calayhisalaam, waxaa batay tarantiisii, waxaana duriyadiisii loo bixiyey reer bani Israa'iil, yacni tafiirtii ka faracamay Nebi Yacquub. wuxuuna arrinkaasi cabsi geliyey Fircoon oo ahaa boqorkii Masar wakhtigaasi. wuxuu bilaabay inuu la wareego hantidooda iyo inuu nolosha ku ciriiriyo. waxaa la sheegaa in Fircoon uu mar ku riyooday dab ka soo baxay Shaam oo gubaya guryaha Masar iyo qasrigiisa, oo haddana aan waxba gaarsiinayn guryaha reer bani Israa'iil. faaliyayaashii waxay u sheegeen in wiil reer bani Israa'iila uu dhalan doono, uu gacantiisana ku baabi'in doono boqortooyada Fircoon. Fircoon wuxuu amar ku bixiyey in la dilo wiil kasta oo reer bani Israa'iila oo dhasha. ciidankii Fircoon ayaa bilaabay inay dilaan ciyaalka la dhalo. Fircoon ayaa mar kale yidhi, haddii aynu layno dhammaan wiilasha reer bani Israa'iil u dhasha, cid noo shaqaysa ayaa la waayi doonaa. waxaa loo soo jeediyey in sanad uu wax dilo, sanadka xigana la iska daayo. Nebi Haaruun calayhisalaam wuxuu dhashay sanadka aan dilka jirin. kadib Nebi Muuse wuxuu dhashay sanadkii carruurta la layn jiray. haddaba hooyadii Nebi Muuse maxay samaysay? Alla subxaanahu wa tacaala ayaa u waxyooday hooyadii Nebi Muuse in ay ku riddo sanduuq isaga oo naasnuug ah, kadibna ay ku riddo webiga oo aysan baqin. Alla ayaa u ballan qaaday inuu xifdinayo oo u soo celin doono. kadib waxaa gacanta ku dhigtay xaaskii Fircoon oo aad ugu faraxday, una sheegtay Fircoon inuusan dilin, laga yaabay inuu wax taro ama ay ilmo ka dhigtaan. kadib waxaa loo yeeray dumarkii wax nuujin karay, gebigoodna wuu diiday ilmihii yaraa, ileen Alle ayaa ka xarimaye. Nebi Muuse oo walaashiis kor kala socotay arrinta naasnuujinta ayaa ku tiri, ma idin tusaa reer ilmaha nuujiya oo daryeela? kadib Nebi Muuse calayhisalaam wuxuu ku soo laabtay hooyadii oo nuujisay, iyadoo lacag ku qaadanaysay arrinkaasi. Nebi Muuse calayhisalaam markii uu koray wuxuu ku noolaa guriga Fircoon, halkaas ayuuna ku barbaaray. shaqaalaha way yaqaaneen reer bani Israa'iil, iyaguna qisadiisa way maqleen. Nebi Muuse markii uu kobcay oo nin weyn uu noqday, maalin maalmaha ka mid a isagoo magaalada dhex maraya ayuu maqlay nin leh, armuusow isoo gaar. markii uu eegay wuxuu arkay 2 nin oo dagaalamaya, mid uu yahay qoomkii Fircoon, kii kalena reer bani Israa'iil. Nebi Muuse oo doonaya inuu ka qabta ninkii reer bani Israa'iil, kii kale ee Qibdiga ahaa ee dulminayay, ayuu wuxuu feer ku dhuftay ninkii Qibdiga ahaa, waa uuna geeriyooday. Nebi Muuse markii ay xaaladiisu degtay wuxuu ka shallaayay wuxuu sameeyey, wuxuuna yidhi, kani waa camalka shaydaanka, isaguna waa cadow daran. Nebi Muuse ayaa dembi dhaaf weydiista Alla subxaanahu wa tacaala. muddo kadib Nebi Muuse oo magaalada dhex socda oo ka baqaya in lasoo sheego, ayaa wuxuu arkay isla ninkii hore uu ka qabtay ninkii Qibdiga ahaa oo haddana nin kale ku dheggan. markii uu Nebi Muuse u soo dhowaaday ayaa ninkii reer bani Israa'iil yidhi, Muusew, ma waxaad doonaysaa inaad i disho sidii aad u disho ninkii hore? ninkii Qibdiga ahaa ayaa warkaas maqlay, wuxuuna farta ka saaray Fircoon, wuxuuna i sheegay in ninkii hore ee la dilay uu ka dambeeyey Muuse calayhisalaam. kadib Fircoon wuxuu amar ku bixiyey in la dilo Nebi Muuse calayhisalaam. nin ka mid a dadkii maqlay amarka dilka Nebi Muuse oo ordaya ayaa u yimid Nebi Muuse, wuxuuna u sheegay in la doonayo in la dilo haddii la arko, wuxuuna ugu nasteexeeyey inuu ka tago magaalada. Nebi Muuse markiiba si degdeg ah ayuu uga baxay magaaladii. isagoo sii socda wuxuu ku ducaystay, Rabbiyow iga badbaadi qoomkan daalimiinta ah. Alla subxaanahu wa tacaala waa uu ka badbaadiyey Nebi Muuse mixnadii daba socotay, wuxuuna qabtay xagga iyo Madyan. qaybtan halkaa ha inoo joogto. soonka iyo acmaasha wanaagsan Allah inaga wada aqbalo. la wadaag qisadan walaalaha kale si ay ugu cibro qaataan, adna aad ajar uga heshid. Ramadaan mubaarak.